gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur Yare oo saxaafadda kula hadlay gudaha magaalada Gaalkacyo ayaa ka hadlay dhalinyarada qaar ee isticmaasha waxyaabaha maanka dooriya asagoo sheegay in ay gacan bira ku qabanayaan cidii ay ku arkaan ayaga oo khamraysan isla mar ahaantaana khalkhal gelinaya amniga magaalada Gaalkacyo baaq ayuu waxa uu diray qaar ka mid ah isbitaalada magaalada Gaalkacyo waa kan gudoomiyuhu arintaasi ka hadlaya shirkeenan wuxuu ku saabsanaa amnigii maantay shirka amniga oo asbuuclaha ahaa amnigu waa fiican yahay aad iyo aad buu fiican yahay laba ciladood baa la sheegay oo aan rabno inaanu ka howlgallo labada ciladoodna waxaa la rabaa labadaba in dadweynuhu ay nagala shaqeeyaan midda koobaad cabtooy magaalada meel xarun ka dhigatay oo ku soo ururta maalin walba cabtooydii waxaanu u dulqaadan weynay in badan baanu dacwo ka samaynay in badan baanu ehliyadoodii odayaashu u dirnay waa socon weyday in odayaashii ay wax ka qabtaan laakiin hadda waxaan go'aansanay cabtooydii inaan gacanta ula tagno howlgal rasmi ah baa lagu fulinayaa cabtooydu annaga waxayna yeesho idima haysano odayaal iyo qabaa'ilo idinkan idinkala xaajaysan mayno cabtooyda gacantaan saaraynaa waxa weeye qof dambe oo cabtooy oo meel xarun ka dhigta ama meel soo fariisto oo dib dambe aan ugu wareegaynaa ma jiro magaalada waxaan rabnaa inay noqoto meel ka caagan khamrada iyo daroogistayaasha iyo cabtooygu waa koob shabaab waa raad shabaab oo haray waa iyagii oo magac kala samaystay oo wali ku sii gabanaya darbiyada fadhiya ciidamada waxaanu amar ku siinay maantay taliyaasha saraakiisha waaweyn oo ciidamada oo ciidamada amniga ah taliyaha booliiska iyo taliyaha aaga iyagoo iskaashanaya cabtooyda in weerar lagu qaaday meesha ay joogaan lana soo afjaro wixii cabtooyda gaarana cid noogu iman kartaa ma jirto odagii isku day inuu cabtooy nooga dhigo nin masaajid ka adibayay adeer ka aqbali mayno annaga waxay noo geystaan annagu cidna kama rabno ciidamada wixii ka dhintay iyo wixii ka dhaawacmay midna cidna uma haysano ayagana wixii ka dhintay wixii ka dhaawacma cidna looma qabsan karo nologuma iman karo isbitaalada jira cabtayga isdhaawaca iyo cabtayga markuu dhaawacmo daaweeya isbitaalada waxaan rabnaa inaad waxa ka waantowdaan ma ogolin qofka aad daaweynaysa waa inaad soo report garaysaan waxa uu yahay cabtooy meel isku dhaawacmay oo la raadinayay oo in la xiro mudnaa inta daaweyso cabtaydii kala baxaan adiguna aad lacagta kala harto suuragal noqon mayso waxaan rabnaa isbitaalada arrimahaas ka shaqeeya oo dadka daaweeya qofka cabtooyga markay la soo meesha la keeno inay soo report gareeyaan isagoo maxbuusa ay daaweeyaan arintaas isbitaaladana waxaan rabnaa inaad ka digtoonaataan arintaas isbitaalo khaas ah sameeya arintaas laba isbitaal ayaan reportkooda haynaa haddaad arintaas aad ku sii socotaanna waxaad ka mid noqonaysaan dadka u baahan in wax laga qabto sidoo kale waxa uu ka hadlay gudoomiye Sanyare dhalinyarada isku dagaasha xaafad waxa uu sheegay in la marsiin doono baadhistii shabaabka oo kale hadii aysan cisho waalidiintood isagoona ku eedeeyay in arintaasi ay ka dambeeyaan haweenuu sheegay inay yihiin shabaab howlgallada soo socdana ay ku fashilmi doonaan waa kan mar kale isagoo arintaasi ka hadlaya arinta labaad waxa weeye ciyaalaha soo noqday xaafadaha ku soo laabtay ciyaalada waxaan malaynaynaa ciyaaladu inayan ciyaalo caadi ahayn sida hadda wax u wadaan ciyaalka ilmihii la qabto waxaan naga go'an inaan baarista argixisada marsiino xabsida argixisadana geeyno waa noqon waayeen ciyaalku ciyaal caadiya waa soo noqdeen torriyay isu qaateen oo fawday sameeyeen magaalada meel kamid ah waa ordeen dhowr jeer aan ka dignay ciyaalkaas la socda waalidiintii dhashay iyo iyagaba u sheegaynaa ilmihii la qabto asaga iyo argixisadu isku marin bay noqonayaan laguna xirmayo saldhigyada caadiga ah markii la qabto waana naqaanaa ciyaalka dadka soo dirayo torriyaha u dhiibayana waa naqaanaa waa jiraan dad baa jira waxun wali ka shaqeynayo xaafadaha ku dhex jira oo waliba hadda dumaradan tuhunsana qayb ka mid ah argagixisada raadadkeedii raggi waa la qabta haweenkii waxba magaalada kaga haray waana ogna guryaha joogaana waa ka warqabnaa laakiin ciyaalkaani ku kashifmi doonaan meesha ugu dambeysay weeye ciyaaladaas waxa weeye ilmihii lagu qabtay ogaada saldhig caadiya iyo ilmo caadiya midna noqon mayo muddo xiraanaya baaris buu galayaa liiska argixisada noogu jira ciyaalkaas hadda
baarista aan marsiinayna waa baarista argixisada waxaan rabnaa magaaladu in amni noqoto qoryihii lala dhexmariyay magaalada waa mamnuuc haddeeran idin sheegaynaa wali waa sidii mamnuuc u tahay meelaha la sheegay qoryaha la habeenkii lala marmaro lagu dhunto cidii qoriga laga qabto ama baskoolad laga qabto hays ogaado waa lagala wareegaya ciidanka kala wareegaya qorigana ku soo noqon isagana waa la xiraya aad iyo aad baa u mahadsantihiin shacabka magaalada Gaalkacyood berri waxay inoo tahay iyo gobolka Mudug oo dhan roobdoon degmooyinka oo dhan waa qabaan maxaan ku iraahdaa in roobdoontaas ay jirto rugaha degmooyinka sida rugta Garacad rugta Balbusle rugta Bacaadweyn rugta maxaan ku iraahdaa cagaaran meelaha rugahan waxa laga rabaa in iyaguna sidoo kale gudoomiyaashoodu ay iyaguna qabtaan degmooyinkana waxa rabnaa degmo walba rugaheeda inay ku qabato u sheegto iclaaminta roobdoonta alla bariga ah oo lagu roobdoonayo gobolka oo dhan berri waa ka roobdoon magaalada Gaalkacyo berri waa la roobdoonayaa waxa la isugu imanayaa oo aan u astaynay dawlad iyo shacabba iyo arday iyo cid walba waxa u astaysan berrito in la isugu yimaado iskuulka Yamayska berri suuqyadu waa xiran yihiin islaamihii suuqyada iyo dadkii suuqyada ka shaqeyn jiray berri waxa la soo aadaya roobdoonta ardaydu iyaga oo labisan iskuulada imanayaan dabeedna roobdoonta u soo gudbayaan xarumaha roobdoonta berri halkaas ay noqonaysaa Nimco Abdirahmaan Maxamed Nimco Fiyoora wararka warbaahinta TV magaalada Gaalkacyo